السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا فيديوغان oo aan duubayno maanta oo taariikhdu tahay 14-ka February 2021 maalmaha soo socda dabcan warshadaha China waa xiran yihiin ilaa 20ka bisha February laga gaaro ay dib u furmi doonaan sanadka cusub ee Chinese ay ku jiraan darteed. laakiin sababta aan videogan u sameynayo waxay tahay waxaan bilaabi doonaa insha Allah koorso Amazon FBA business laakiin koorsadan Islamic shop waxa weeye koorsaan rabnaa inaan dadka ku tusno sida qofka uu bilaabi karo ganacsigan bilow ilaa dhamaad. marka taan ku leeyahay waxa weeyaan koorsada casharo kamida ayaan maalin walba soo gelinaynaa website-ka. targetkeena waxa waaye 15 maalmood kaliya in aan ku bilowno kuna dhameeyno company-ga oo dhan, store-ka oo dhan, laga bilaabo magaca website-ka, dhismaha website-ka, loogada, product-ga, Amazon account-ka, listing-ka ilaa iyo maalinta 16aad waxaan u baahannahay sale-keena ugu horeeyay first sale-keeni in aan sameyno ayaan u baahannahay. waa challenge aan bilaabayno insha Allah. goorma challenge-ga bilaabanaysaa? waxay bilaabanaysaa Isniinta February 15keeda ay bilaabanaysaa. 15 maalmood ayaan xisaabsanaynaa meeshaas. February-na saa la socotaan waxay ku dhamaanaysaa 8 ayay ku dhamaanaysaa February. marka meeshaas waxaan ku darsanaynaa 2 maalmood ayaan ku darsanaynaa. marka 15ka February ilaa iyo March labadeeda challenge-ga aan galayna waxa weeye hadii la yiraahdo in aan Islamic shop intaan ka soo bilaawno scratch ilaa dhamaad. Islamic shop marka maxaa la jeedaa? productyo badan oo waxaa jiro oo maaragtay Islamic product la yiraahdo Amazon lagu iibiyo ee alibaba.com lagu iibiyo oo raqiis ah. saliyada kamid ah, tusbaxyada kamid ah, sameecadaha mataqaana quraanka laga dhageysta kamid ah, qalinka quraanka mataqaana akhriya kamid ah, aad u badan yihiin. marka waxaan dooranaynaa 10 product aan dooranaynaa. challenge ugu horeeyna waxa weeye in aan hal product aan ka gaarsiino 15 maalmood gudahooda inaan Amazon ku keeno. then mataqaana casharada kalena way sii socon doonaan. laakiin challenge-ga waxa weeye waa halka product in aan mataqaana aan from below ilaa dhamaad Amazon aan ku keeno hadii la yiraahdo. then koorsada waxay ku sii soconaysaa productyada kale iyo maaragtay sida loo launch garanayo. dukaankan hadda cusub aan bilaabayno waxaan target ka dhiganaynaa aan tusayno insha Allah in uu dukaankan markaan dhameeyno 5 product loogu talagalay 10 product hamigeenu uu yahay. laakiin targetkeena koowaad waxa weeye 5 product inaan launch garayno challenge-ga markuu dhamaado kadib. I hope in ay fahantaan because waxyaalo badan isku khalkhaldaya xoogaa yar. marka macnaha waxaan ka wadaa 15 maalmood gudahooda hal product aan ku launch garayna all the way. laakiin website-ka markaan dhisayno waxaan ku dhisaynaa 10 product oo Islamic product ah aan ku dhisaynaa in uu dukaanka uu iibinayo. 10ka product 5 kamid ah ayaan mataqaanaa insha Allah markay challenge-ga dhamaato aan sii wadaynaa casharo ka sii sameeynaa. haddaba 5taasna waxaan tusaynaa insha Allah ugu yaraan 5taas markaan website-keena aan ku list garayno payment processing aan ku xirno, Amazon aan ku xirno, dukaankana scratch laga soo bilaabayo in within bisha ugu hore xiisinta ugu hore bisha ugu hore markaan sameyno in aan tusno insha Allah every single penny ama dukaankaas uu soo saaray inaan tusno. targetkana waxa weeye in uu $2,500 bil walbo uu soo saaro 5 product ugu horeyso. waan ogahay inay ka badanayso laakiin waxaan rabaa inaan meesha ugu hooseyso aan qabsadaan rabaa. meesha ugu hooseyso inaan qabsado. marka that's why aan rabnaa insha Allah ta'ala challenge-gan inaan galno aan ugu hold gareysaan idinka mataqaana accountable aan uga dhigtaan. waxay iga qayb qaadanaya asxaab back gadaal igala shaqeyn doonaan sida mataqaana assistant-kayga website-yada mataqaana dhisi doono hadii Ilaahay yiraahdo. graphic designer-kayga waxaa kaloo virtual assistant-ka mataqaana xagga product finding-ka iyo product listing-ka sameyn doona insha Allah. laakiin shaqada si live ah aniga u sameynayo. gadaal ay iga caawinayaan si mataqaana challenge-ga aan u miskareenin hadii Ilaahay yiraahdo. cashar walbo aan ka sameynana waxaan soo gelinaynaa abadiracademy.com ayaan soo gelinaynaa. halkaas kala soconaysaa. berita Monday-da ah ayaa ugu horeyso in aan mataqaana bilowno from scratch magacii
companygii loogadii website-ki dhismihiisii everything from scratch inaan ka bilaawno 5 maalmood ee hadda ay xiran yihiin manufacturing-ka aan kasii shaqeyno barnaamijyadeena kale iyo live product finding-ka February 20 manufacturing markii dib loo furana in aan bilaawno alaabta iyo processing aan kasoo gaarsiino shipping express oo degdeg aan soo saarno Amazon aan keeno sale-ka ugu horreeya aan sameyno review-ga aan raadino marka adiga haddii aad rabto inaad product launch gareysato easy intaas hadda aan sameyno ayaa sameynaysaa midda kalena ma aha tan presentation sidaas sameey sidaas yeel ma aha waxaa weeye xataa negotiationka gorgortanka warshada aan la gorgortamayno sheekooyinka aan ku sheekaysana waa in tuseynaa productiga aan dooranay lacagta qaabka aan u bixinay producti markay kasoo tagtay meeshii tracking numberkii everything waan tuseynaa insha allahu tacaala challenge-gana waxaa waaye 15 maalmood gudahooda in aan productiga hore ku dhameyno bisha ugu horena markay kasoo wareegato from March 15 to March 2nd ayaan productiga hore launch garanaynaa then waxaan isku dayaynaa second product third product markaan 5 product dhameynana waxaan isku dayaynaa dukaanka inuu bil walba soo saaro 2500 isagoo ku iibinayo website-kana laga iibsan karo Amazon laga iibsan karo then 2500 waa minimum weeyaan I know 4000 soo saaraya 5000 soo saaraya ka badan soo saaraya because 5 product marka launch garayso oo alaab badan weeyaan laakiin minimum kugu hoosan qabsanina so haddii aad rabto inaad si live u daawato casharada markay saa u soo dhacaan oo aad la socoto adigana aad barigaada dhinac ka bilaabato step-ka aan sameynayna aad samayso adigoo aan naga daba bilaabin productiga aan bilaawno adigoo naga daba bilaabaynin laakiin aad mataqaanaa product aad dooranayso haddii aad private Facebook groupkeena ka mid tahayna productyada aan soo galno mid ka mid aad dooranayso ama adirkaani package ka gadanayso laakiin aad raacayso steps aan raacin adigoo raacaysa insha Allah la soco haddii la yiraahdo waa tahay sidee marka ku heli kartaa casharadan waxaa ku heli kartaa inaad tagto www.abadiracademy.com kadibna aad iska diiwaan geliso $10 ayaa ka bishi kaaga baxayso haddii aad mataqaanaa isdiiwaan geliso 7 days free trial waa haysataa marka isku diiwaan geliso kaararka 7 maalmood ugu hore waxa weeye wax lacag kaaga baxayso malaha casharadana way socdaan waa daawan kartaa kadibna $10 kaliya ka baxayso haddii aad bil rabto haddii aad 2 bil rabto haddii aad ka badan rabto adiga kugu xirantahay waa iska joojin kartaa anytime okay I know that aad u badan oo very excited inay jiraan oo koorsooyinkeena mar walba dhahaaniyo waa raqiis koorsooyinkeena aad iyo aad but laakiin goalkeena waxa weeye in aan insha Allah information kan aan sida ugu fudud uguna mataqaana raqiisan aan ku soo gudbino marka waxaan doonayaa inaan helo asxaab YouTube-ka ku xiran inaa baxdaan abadiracademy.com iska diiwaan gelisaan koorsadaana step by step oo la socotaan 15 maalmood ee aan ku launch gareynayno product ugu horeyso inaa indhahaada ku aragto live every single step aan qaadayno inaa ku aragto haddii la yiraahdo haddii aad mataqaanaa aad rabto inaad sheekada aad sii macayso oo mataqaanaa aan challenge-ga aan sii kordhin hadaa rabtana markaa isdiiwaan geliso lambarkayga WhatsApp-ka ah iga soo dir fariin 669-204-5626 waa personal lambarkayga weeyaan ii soo dir inaad ka mid tahay dadka mataqaanaa challenge-ga qaadanayo anigana si ii dhiira geliso oo aan dhaho ballantii aan galay 15 maalmood aheyd ha ka daba marin midda kale waxaan rabaa in arrin kale oo sida aan la wadaago inta aanan challenge-gan aan qaadan ka hor teamkan la soo tashtay waxaan sameynay mataqaanaa waxaan dhahay okay challenge-gan 15 maalmood waaye ma raba inay fail garowdo 100% qof walba diyaar ha ahaado markaan looga u baahdo markaan website u baahdo markaan u baahdo product finding teamka oo dhan waa inay diyaar ahaadaan marka garantiya la siiyey in mataqaanaa garabkayga la ahaanayo lala shaqeynayo insha Allah asxaabta dhammaan saas ayaan mataqaanaa idinku ognahay so haddii aad isdiiwaan geliso oo aad interest garaynayso koorsadan fariinta ii soo dir waxaad tidhaahdaa waa isdiiwaan geliyey challenge-gan ka mid ahay waan sugayaa cashir walba ama walba soo gelinayso waan mataqaanaa waan daawanayaa si aad marka u hesho koorsada saxda ah koorsooyin badan oo Amazon FBA ku jiro saa u hesho koorsada saxda ah koorsada magaceeda waxaa weeye waa launching Islamic shop in 15 days launching Islamic shop in 15 days weeyaan okay koorsada magaceeda weeye haddii aan af Soomaaliya waxaa weeye in lagu furo ama lagu daafuro 15 maalmood gudahooda Islamic shop wuxuu iibinayaa 10 product ayuu iibinayaa 10ka product tii ugu horeysa ku bilaabeynaa sidii steps ka daan soo sheegay weeyaan so insha Allah ka qayb qaado haddii Ilaahay yiraahdo waxaa kaloo iyadana mataqaanaa muhiim ah oo aan rabaa inaan la socodsiiyo dukaankan markaan dhameyno oo aan 5 product launch gareyno 10 product markaan launch gareyno productyada aan ku launch gareyno adiga xataa waa bilaabi kartaa wax problem ma laha taas
dhibaato product nama haysato insha Allah product badan ahaynaa tools ka isticmaalno waxa kamid ah Jungle Scout iyo Helium 10 bad laakiin markaan dhameeyno dukaankan oo uu live noqdo loogadiisa website-kiisa uu sale sameynayo wax iibinayo waxaan jecelnahay annaga ma raan gareyn karno dukaankan business-yada badan mataqaana aan ku jirnaa inaan ku wareejino dad u baahan oo aan iibino haddii marka dukaankan markaan launch gareyno aad jecesha inaad iibsato nala soo xiriir asagoo diyaar ah مع الامازون account-kiisa wato مع الwebsite-kiisa wato مع wax walba everything wato ayaa lagu wareejinaya magacaada lagu qoraya meeshaas ka sii wadanaysa qofka ugu horeeya interest garanayo ayaan siinayna qofna mataqaana gooni oo sameeyno waa tahay soo marka haddii aad challenge-gaas iska diiwaan geliso fariinta ilowina ay soo dirto taas waxay siinaysaa dhiirigelin ah dadka indhaha igu hayo inay aad u badan yihiin anigana aan u baahnayn in aan hal habeen seexdo ilaa aan ka dhameeyo challenge-ga 15 maalmood waa tahay aan wax yar intuso hal mar product-ga aan ka fikirayo inaan ku bilaabo ama ku launch gareeyo aan wax yar intuso okay waxaan tagayaa alibaba.com alibudina.com okay halkan waxaan ku qorayaa Islamic product wax badan baa la kashifaya wax badan wax information oo la reebayo insha Allah ma jirto by the way alaabtan haddii aad joogto caalamka meesha doonto joog wadanka aad joog waa launch garan kartaa adigana okay waxa weeye dharka dumarka ma galaayo kuwaas gabdhaha u deenayna kuma cariirinayna suuqa insha Allah laakiin waxyaalaha aan sameynayno waxa kamid ah sameecadahana kamid ah tobanka product waan choose garan doonaa insha Allah saacadaha masaajidaha la dhigto kuwaas oo kala kamid ah qalinka quraanka akhriya kamid ah aan launch garan doono by the way qalinkan dukaamada Soomaalida ama dukaamada Carabta $80 lagu gadaa annaga waxaan ka soo gadan doonaa Alibaba maximum waxaan bixin doonaa $20 xabadii ama $15 depending warshada aan helay ku xiran tahay marka fiir lacagta la saarna inta la eg tahay wax badan la kashfaya hayay hoosan u soconayaa product-ga aan rabo inaan intuso haddana qalinkii nooc kala ah weeye kuwa dumarka horta dharka dumarka xagga iga dhig isaga maba ku jiraba okay halkan waxaan gelinayaa prayer mat kamid ah prayer mat la qor la ay maanta come on where is the school you went buddy mat labati weeyaan come on mat waa haltii okay waayahay salliga waa kaas laakiin Islamic prayer mat markii la ayuu mid ka fiican soo baxaa Islamic prayer mat-ka salliyada hadda lagu iibiyo Alibaba kii igu yar badnaa oo ahaa mid oo screen yar leh oo ragcooyinka xisaabinayo waxaan dhammaynaa sheekada mas'uuliyadda naga joojiyana China sheekadaas naga joojiya ragcooyinka aan tukanayna naga xisaabsan karnaa salli noo xisaabiyo mar rabnaa naga joojiya qaar baa laga yaabaa inaan u maleeyo inaan iska dhahayo ay ku jira anyway salliyo $2 ilaa $4 meesha ku jiro halkan waxaan ku qorayaa oo kale Quran speakers Alibaba oo Quran speaker lagu qoraayo kuwana soo baxayo quruxda badan niman Pakistaniyiin waxaan arkay bahaladan $10 ilaa $15 Alibaba la gado oo $70 gadaayo waliba Shopify ku iibinayo iyo WordPress iyo website-yada caadiga ku iibinayo maxaa lacag badan iska sameynaya meeshan waa tahay product-yada kamid ah marka goolka waxa waaye focus-keena electronic uu noqonayaa wuxuu kala noqonayaa qaar kale oo aan electronic ahayn oo product-yo kale ah laakiin dukaankan wuxuu ka contain gareys dukaankan wuxuu ka koobnaan doonaa 10 product sidaan soo sheegnay 10 kun waxay ahaanayaan 10 Islamic product oo ahaanayaan insha Allah marka saas darteed ayaan ku bilaabi doonaa insha Allah taala waxaan isku ognahay berito iyo qaybtii ugu horeysay inaad kala socotaan abadiracademy.com saacada goorma expect garanaysa xilligee la soo gelinaya actually challenge casharada anaga waxaan bilaabaynaa waa maanta axada waxaan rabnaa inaan hal maalin naga horeyna rabnaa san editing u sameysano wixii kale mataqaana mar walba 24 hours inaan ka horeyno marka berito Monday-da
markay saacadda aniga maadaama halkan joogo dalka Mareykanka aan ku sugnahay hadda saacadda markay tahay 6 galabnimo markay tahay California time ama 8 p.m. markay tahay Minnesota time ayaa casharada Abaadir Academy la soo gelin doonaa markay tahay 6 galabnimo California time markay tahay dhanka iyo Soomaaliya dadka jooga ee ku xiran waxay u noqon doontaa saacadda markaas salaada subax talaadada meelahaas u ahaanaysa ayaga talaadada xilliga salaada subax ee soo dhowdahay kale u ahaanaysa soo subaxa talaadada inii bilaabanaysa maadaama anaga isniin galabkeeda aan soo gelinayno hawsha waa tahay saasaan isku ognaa insha Allah challenge-ga la soco iska diiwaan geli good luck ayaan ku leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh